madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa xarunta madaxtooyada Soomaaliland ku qabtay xaflad markaas lagu dabaaldegay sanad guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay in Soomaaliya inteeda kale ka go'day 18 May 1991 warkaasi waxaa inoo haya wariyaha magaalada Hargeysa Cabditax Cusmaan. aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa lagu qabtay xaflad lagu xusiyay 27 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland xorriyadeeda dib u soo noqotay isla markaasina 27 sano ka hor ay ku dhawaaqday inay Soomaaliya inteeda kale ka madax bannaan tahayna dawlad gaar u taagan. xafladan lagu xusiyay 18 May sanad guuradii 27aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland xorriyadeeda dib u soo noqotay ayaa iskugu jirtay afur iyo waliba casho. waxaana ka soo qayb galay madax uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici, madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin, gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan iyo waliba qaar ka mid ah madaxweynaha ku-xigeenadii Soomaaliland hore u soo maray. sidoo kalena xafladani waxaa ka soo qayb galay Professor Cali Khaliif Galayd iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland aadan xaaji cali iyo waliba mas'uuliyiin ka socday dalalka dariska. sidoo kalena xafladani waxaa ka soo qayb galay shacab aad u tiro badan oo iyagana lagu casuumay. ugu horreynna halkaas waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ugu horreyn u diray shacabka Soomaaliland hambaliyo iyo ciidamada qaranka Soomaaliland. shacabka Soomaaliland meel jooga waxa la hambaliyo sanad guurida 27aad ee ka soo wareegtay 18 May maalintii laga soo noqday xorriyadda Soomaaliland. waxaan maraygaan u dirayaa ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee naftoodurayaasha ah ee dalka daafaca cadow kasta oo soo hoggaamaya cashar u dhiga. waxaanu sheegay madaxweynuhu in Soomaaliland diyaar u tahay inay dalalka jaarka kula noolaato nabad. ka socda ceelaf weyn in laga wada qayb qaato si loo joojin lahaa. dawlad ahaan xukuumad ahaanna waxaanu fulinaynaa wax kasta oo ay ku kacayso in nabad lagu soo celiyo. nin kasta oo nabadda ka hor yimaado waa la dagaalamayna. jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku aasaasantay nabad. waxay ku aasaasantay inay dalkeeda nabad iyo barwaaqo horumar ka samayso. waxay ku abuurantay inay dadkana jecel wanaag iyo nabad kula noolaato. Soomaaliland ka u yar iyo ka u weyn caqligoodu wuxuu ku dhisan yahay oo aragtidoodu tahay nabad iyo horumar iyo qabsasho. dagaalka maanta la soo qaadayna uma aragna mid faa'iido ku jirto. waxaana la walaalayaa uma soo socono dhibaatadiina. Puntland uma soo socono. magaalada Garowe uma soo socono. dhankiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa isaguna shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan midnimadooda. gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. ciidan weyn ka socota dadka walaalhe isleeynaya waxaan leeyahay wax alla waxa isku leeynaysa waa macna daro dagaalka joojiya oo ilaahiina u noqda. waxa ugu weyn ee Soomaaliland ay ku hirgalayso ee ay wax ku noqonayso waxa weeye midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliland wada leh. anagu diyaar uma nihin oo dagaal uma diyaarnihin oo nabad baanu rabay. dhankiisana Professor Cali Khaliif Galayd ayaa isaguna halkaasi hadal ka jeediyay. ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan shirkii Burco ee lagaga dhawaaqay arrimaha Soomaaliland goobjoog baan ka ahaa. kii Booramana goobjoog baan ka ahaa. cidna marti uma nihin cidna magan uma nihin. xafladanina waxay ku soo dhamaatay jawi farxadeed. Cabditax Cusmaan, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.